السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. la soco barnaamijka caafimaadka maalin kasta oo jimco ah. waxaanu maanta ku soo qaadan doonaa waxa la yiraahdo STI amba Sexual Transmitted Disease oo noqonaya cudurrada ku faafa galmada. waxaanu maanta ka hadli doonaa waxa sababa iska ilaalintiisa, daaweynta, sida loo aqoonsado qofka qaba xanuunka, inaad la xiriirto dhakhtar amba goob caafimaad. STI-yadu waa cudurrada lagu kala qaado xidhiidhka galmada ee qofka qaba. STI waxaa sidoo kale jira qaabab kale oo lagu kala qaadi karo. STI-yo badan qaarkood waxaa sababa bacteria, waxaa kaloo sababa virus amba dulin. astaamaha ama qaababka kale kaas oo loo baadho amba loo daaweeyo sidoo kale way kala duwan yihiin. STI-yada si kadis ah iskagama tagaan. u tag dhakhtarkaaga guud amba adeega caafimaadka degmada wixii ah daaweynta. STI-yada waxaa sababa bacteria, waxaa si fudud lagu daaweyn karaa antibiotics. waxaa ka mid ah STI-yada ay sababto bacteriyadu Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis labada qofba way saameyn kartaa. gabadha waxay kaga dhici kartaa syphilis amba makaanka afkiisa, rectum oo ah malawdka, throat oo ah cunaha. ninka waxay kaga dhici kartaa urethra oo ah kaadi mareenka, rectum oo ah malawdka, iyo throat oo ah cunaha. sidoo kale cudurrada galmada lagu kala qaado waxaa ka mid ah cudurka loo yaqaano gonorrhea amba choctida. haddaba gonorrhea bacteriyada sababta waxaa la yidhaahdaa Neisseria gonorrhea. waxaa laga helaa bakteeriyadan dheecaan ka soo baxa xubinka taranka ragga iyo dareere ka soo baxa xubinka taranka dumarka. waxaa kale oo ka mid ah cudurka loo yaqaano syphilis. xanuunkan wuxuu ka mid yahay cudurrada galmada lagu kala qaado, waxaana sababta bacteria infection kaasoo ku faafta galmada. cudurkan waxa uu ku bilaabmaa marka ugu horeysa wuxuu ku dhacaa xubnaha taranka rag iyo dumar, rectumka amba wax la yaqaano malawadka, afka. haddaba saddexda cudur ee aan soo sheegnay waxaa sababa bacteria. waxaa jira oo kale STI virusku sababo. way adag tahay amba suurtagal maaha in la daaweeyo. STI-yada ay sababto virusku waxaa ka mid ah hepatitis B oo Soomaali ku noqonaysa cagaarshow, wuxuuna keenaa virus kaasoo weerara beerka. hepatitis C oo ah cagaarshow waxaa ka mid ah HIV, burooyin ka soo baxa xubinka taranka dushooda. waxaa kale oo ka mid ah STI ay sababaan parasiteku amba dullinku. waxaa ka mid ah xanuunka loo yaqaano isnidaamiska, caabuq ku dhaca kaadi mareenka oo loo yaqaano trichomoniasis. haddaba su-aasha ayaa ah sideen iskaga ilaalin karaa STI-yada? kondomku wuxuu kaa ilaaliyaa adiga iyo lamaanahaagaba in aad xanuunka isku gudbisaan. haddaba badanka STI-yada waa la daaweyn karaa ama astaamahoogu way qarsoomi karaan. STI-yada waxaa si halis ah ay u waxyeelayn karaan caafimaadka haddii aan la daaweyn. sidoo kale waad qaadsiin kartaa dadka kale. sidee loo aqoonsadaa STI? inta badan ma laha astaamo cad. had iyo jeer maari kartid. haddii aad qabto STI, u tag dhakhtarka guud adeega caafimaadka dadweynaha degmada amba waxaa loo yaqaano Health Organization for Preventive Health Care. maanta cashirkeenu halkaas ayuu ku eegyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.